madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi hogaaminaya ayaa galabta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug oo ay shir ku yeelan doonaan madaxda dawlad goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qaarkoodba haatan soo gaaray magaalada Dhuusamareeb. madaxweynaha Farmaajo ayaa waxa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ku xigeenkiisa iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulkaasi. ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaana haatan gurigu magaalada ka degay madaxweynaha Farmaajo uu shir kula leeyahay madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo dhamaantood ku sugan caasimadda Galmudug. madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaanan ku sugnayn magaalada Dhuusamareeb ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo arrintaasi ku aadan oo ka soo baxay qabanqaabiyaasha shirkaani. dhammaan dadka daneeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa indhaha ku haya waxa ka soo bixi kara haddii uu qabsamo shirka Dhuusamareeb 3 oo go'aan looga gaari doono doorashada Soomaaliya ee 2020-2021 oo wali la isku mari laayahay. doodo badan ayaa shirkaani hareyn doona waxaana ka mid ah in madaxweynaha Farmaajo wali ku dhagan yahay doorasho qof iyo cod ah oo ay diiday mucaaradka iyo maamulada qaar. yeelkeedii haatan waxa la dhowrayaa halkuu saldhigan doono shirkan iyo waxa lagu heshiin doono. maxamed cali maxamed TV-ga iyo raadiyaha Shabeelle magaalada Dhuusamareeb.